warwaadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabir ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeerya isku keenay koroodaanana kolkooda howay kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaar yahay ma kayga niqatallaa dadku waa kalamaan how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino aryaadhaha kalamaanay beriga walaxaan idiin sheega dalkan daawadiisu mahay ku jirtaanna idiin sheega eehow dalkan dantiisu waa dadko iska difaaca daalimin dalkan dantiisu waa dadko iska difaaca daalimin war walla weynay ilaahay haydin garansiiyo war dadku xoog iyo xoolo ay isku difaacaanba waa haystaaye qorshe iyo abaabul iyo in la horkacu u baahan yahay war dalku tabar difaacda waa leeyahe tala difaacduusan lahayn war waxaa la yidhi ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw eebbaagoo qowdhanow beriga adaa isu maahmaahaya dadkaaga dhinac ka raac warnimada waxaa la yidhi isku raran la kala raray ninba meel rakuubkiiyo ratigiisa ula kacay ayuunbaa rabaqidiyo geediga ku riiqmoo rajadii dadweynaha sii ragaadinaye marna raabaqaadkiiyo sawreerka lama furo maxaa laga rabaa oo loo furayaa waaba noo raran yahay ambaqaadka geediga sida oorta loo raaro heesaha u gaarka waha lagu aloosaa maga eebbahey iyo adiniyo af wada jira wareer kalamaanay eestu waxbarashada dad ku celiseen haddaad iska dhaaftaanba goodax baro waa kii imtixaankii ku celiyey ratigawana qurbax riimayoo geeli laga reebay ayaa roobadii saaran tahay dheellina u rarane rabbi tiisa mooyiyo inaan run isu sheegnaaye halis bay ka sii raaracdaa waana ridaya ilaahu waa naga ridin wuxuu yidhi rigrigan xaaje ragaaday roortayoo kici weyda rayfalkaaga cabbayso markaan kayga ridaayo adna kaagu harreyeemo hadda miyaanan ka gaboobaynin rafiiqa qabyaaladiyo anaa reer hebel ka wacan ummad horaa lagu rogo inay raran iyo dab tahay raxmaankiina uumay iyo rasuulkeennaa ka digey war waxaa la yidhi xoolaha meeshii raq iyo waraabuhu raxan ka dhigo ka roora ayay gartaan riyaha ma ka liidannaa riyaha waa ka liidannaahoo eri carbeedku markou hoobiya soo dhaco shubkow ka geli jira ununkana bannaankou nugu lay jira bini'aadamku markay dariiqa toosan ka lumaan xoolaha inay ka liidanayaan ilaah ayaa sheegay warnimayo nin baa wuxuu ugu yidhi markii nala dhahayo dawladku meel gaara baa laydiin soo dhisayaa meesha nala gaarsiinayo bahanaan isweyddiine meesha nala gaarsiinayo maalkan bay ahayd warlan yowlan waalan ata adduunyadu dhanka ka meeldeer ah war adduunyada federaal waa ka jiraaye annaga qabiilaan ku darnay aryaama fayaabida 4.5 iyo federaal kale ma heraanaa lagaa yidhi taas warnimayo wiilkii fogaan eeg ahaa saaka su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi dawladnimadu adeer waa maxay ma sidaana mase waa sidaan dawladaxayn talinayso albaabkii xiranayso bulshadii xilka saartay xaqiraysa miyaa buu yidhi jabad xoolaha boobto dadka xoogga yaraa xaqiraysa waxoodoo xaragoota miya marka kalemaanan jawaab uga rabaa wiilka aryaa adiga iyo canugaad sheegayso xabbad dawlad kama taqaaniina shibnaga dhaha war guddoomiyaha degmada xamarjajab wuxuu yidhi dekadda muqdisho waxay ku taalaa degmada xamarjajab amnigeeda iyo nadaafadeedana waa ka qayb qaadanaa dhaqaalaheedana ma aragno horteenaa la mariyaa haye arag maqal warkana ood miyaa la yidhi war taas horaa allah u naxariistay abgaal cabdilla raaga u sheegay qumbaan waardiyeeyaa nin kale qaadada uu sido waa ka yidhi war maya waxa weeyaan qormo uu rag kale leeyahay ayuunbaan u qiyaasaa warnimiyow maysiin lahaa gowsaarka hoola daajiyaw aanadu si hamaale walka bashe ana kaleeye helankun alaangalaw ka bashe malsiyo war ma haysiine kalamaanay wax badan baad kalamaan sheegateen kalamaan rasmiyu maanta wuxuu ka jiraa galmudug guddigii doorashada ee dawladdu magacaawday xaflada dhuusmareeb loogu qabtay hool weyn maantana guddigii ra'iisul wasaare Dr. Shaakir uu magacaabay ayaa isla hoolkii xaflad loogu qabtay labada guddina mid walba wuxuu sheeganayaa galmudug dhammaystiran inay soo dhisayaan horaa waxaa loo yidhi hawaale adduun haadbahaad kiciyo hilaacba hilaac ka hoos yimid mugga la yaabi maayo in sidaasu dhacdo aga war awowgii la gub innagaaba markii hore qaldanoo khilaafka galmudug baa iska lahayd eegga haddaan 3 madaxweyne samaysannay 4 baan ka sugi galmudug ama 5 war madaxweynaha jubbaland alsayid axmed madoobe waxaa lagu tikraaray madaxweyne xidig iyo madaxweyne seeraar madaxweynihii ku-meelgaarka ah ee galmudug wasiir qarafaan
asna waxaa lagu tikraaray ra'iisul wasaare Dr. Shaakir may dheegi jiray meelhaadka buubi hirib malee libaagi hooyadooy wal hubsooy lankii galmudug ka takraara meeleeye wallaahi aan loo dhameen oo bilaahi loo dhameen iridkeeda aadi mayn wallaahi aan la tagi karin oo bilaahi la tagi karin galmudug oo dhan baan samaynaynaa kii meesha ka soo qaylqayliyana daa midunkiisaan u marsi doonaa galmudug oo loo dhan yahay baan dhisi doonnaa ino arayaan shaka male muraad joolognan reed eedaan gordaysan shakisiinka jarama jucurta warya annaga ama afaan naqaana wax nooga sheega manada buda ani 9 nambar hebadka loo ku gubi fadaasi ma agaangaha walaalayaal kala jooga yaa oo hadday kala joogi waayaan maxay kala faa'iidaayin arbeen ma rabne boolaya xoofta waa dhamaate arbeen ma rabne boolaya xoofta waa dhamaate boolaya xoofta waa dhamaate urur ma haysaane shirkii Afrika iyo Ruushka Soomaaliya ku guulaysato kaalinta koowaad gashay ma Soomaaliya koow gasho Afrika ka guulaysato kubadda cagta horaa waxaa loo yiri sadambaati subax xariira qabsugan la siida war Soomaaliya Mugabe ba ciyaar ku dishay ma wax kala u dhiman war Ruushka madaxweynuhu tartan ka qayb galay may warka waa iska soo dhaxgashiina naga suga madaxweynaha Ruushka madaxweynaha Soomaaliya si fiican buu soo dhaweeyay shirka markuu furayana wuxuu warkiisa ku bilaabay deyntan Soomaaliya ku lahayn afis weeyay Afrikada kalena waa ka cafinaynaa haddaan doonno yiri خلق قرمو لعقت نقول يا شطبات انت بديان بحرير كوجرني horta deynta hore hanaga cafiya ma xume ruushku ama deyn cusubna fiiha war anigu Facebook waxaan ku arkay horta Facebook aan inta ku yaala dadkii waa dhibay madaxtooyadana uma dhawe Twitter u dis leeyahay WhatsApp ay ilmaadariin maya email ilmahabreed yihiin war YouTube maya adeer u ah waxaad kala ogtiin mali war ma taqaaniin kulligood ba islaam jaada dhalay warka naga dhax gelinayna dhageysta Facebook waxa la soo saaray madaxweynaha Soomaaliya oo fikirayo Abiy Ahmed iyo Uhuru Kenyatta oo kurkurayo il khanjir way maxay ka qaadayaan aryaadaha ilqumba ma furata hore loo yiri xaq kale hayaan war may leeray hamasho absuu hawaarna taagdaru waleeri war Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed ishooda farmaajo waxba ka qaadi mayso xoogaga wadaniyiinta oo heesay madaxweynaha waxay dhaheen duca qaba farmaajo dib u laaban mayno duca qaba farmaajo dib u laaban mayno noodir hawsha noodir hawsha noodir war xildhibaan fiqi wuxuu yiri guul wadayn dib u laabasho ka daran ma jirto aku xildhibaan fiqi wax kasta shaarka uga faydaa horta war shacabka Muqdisho ninkii madax u noqdo amaanayaan war ma haysiine Masar iyo Ethiopia xaaladoodu meel xun bay maraysaa Abiy Ahmed wuxuu yiri biyo xireenka aan samaynayno ma joojinayno Masarna waxay tiri wabiga Niil waa nolosha dadka Masar in biyaha laga leexsadaana waa dadka Masar oo la laayo sidaa darteed awoodeenan isticmaalayna waxba la harimayno war madaxweynaha Masar markuu Eritrea iyo Ethiopia heshiisiinayay Abiy Ahmed saxaafada horteedu ku dhaariyay wuxuuna yiri madaxweyne Sisi Abiy Ahmed oo makugu wallahi yaa inaadan biyaha Masar waxba u dhibayn haye ma Sisi yaa loo soo dhaaraha hadda hal yimaad minay wax laga qaadayo waa taas wariyaasan oo Soomaaliya ma dadka celi kara war Abiy Ahmed nin kale oo ma Jawaahir leeyahay madax kula jiraan yaa Jawaahir waa gabar nin hadhiin naxtin godob oo ha ku gashay war Abiy Ahmed xildhibaan Jawaahir ma isku dhaceen marka ma beladii ugu dartay war Jawaahir waa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka war Jawaahir baargabba gudoomiyaha haweenka oo gobolka Banaadir waryaanahan Jamhuuriyaddii Soomaaliland war culus baa ka soo baxay meeqa kiilasahay waran dhexboodina dhageyso waxa jiri Turkiga iyo Eritrea Soomaaliya hubaynayaan marka arintaasna aad baaban uga cabsi qabla haday Turkiga iyo Eritrea meesha yimaadeen war Soomaaliland war kama haysid qowdana dhageyso waxay dhaheen Soomaaliya in deynta laga cafin cunaqabataynta hubkan ayaa laga qaadin marka waxa la yaabanahay Soomaaliya in deyn faraqa lagu dhaganaa Soomaaliland maxaa dan ugu jira war adeer annaga deyntiin waxba nagama galine ina dhigaysataan dooni ma mayne war waa yaabe beyle ma been baa noo sheegayay ambaray beyle waa nin Soomaaliland ah waraa dooda joojiya deyntaan la kaafiye war aqalka sare oo waasi xeerka dakhliga dalka war Cabdi Xaashim gudoominay war Abshir Bukhari haduu shirku doominay waa la soo tuurlay war Cabdi Xaashim waa odayga Soomaaliland war Cabdi Xaashim waa oday Soomaaliyeed waana gudoomiyaha aqalka sare Soomaaliya ee ha u gafin war nimayo ninkan iska ilaaliya waa kula jirka jire aryaadaha kuwa deynta nagu leh waxay leeyihiin oo kuminin qaatay keenima kamana marmo kiilahay kuminin qaaday keenima kamana marmo kiilahay